madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta shir gudoomiyay kalfadhigii golaha wasiirada Somaliland ee 76aad kaasi oo ku qabsoomay habka maqal iyo muuqaalka ee loo yaqaan video conference waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Shire Saylici oo maanta loo horkeenay miisaaniyad sanadeedka 2022 hase haatee ugu horeyn halkaasi waxa uu goluhu warbixin kaga dhageystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland oo ka warbixiyay xaaladda guud ee nabadgelyada dalka sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaa golaha uga warbixiyay xaaladda caafimaad ee dalka iyo heerka uu marayo xanuunka safmareenka ee COVID-19 oo caalamka mar kale ku soo labakacleeyay dalka Somaliland ka jira kaasi oo saameyn ku yeeshay mar kale caafimaadka bulshada isagoo wasiirku ku dheeraaday dadaalka ay wasaaraddu ugu jirto la dagaalanka COVID-19 waxaana uu madaxda iyo shacabka ku adkeeyay inay ka feejignaadaan fiditaanka xanuunka coronavirus una hoggaansamaan amaawirta caafimaad ee lagaga hortagayo sidoo kale wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland ayaa golaha horkeentay odoroska miisaaniyad sanadeedka 2022 waxaana golaha sharaxaad ka siiyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland isagoo dul istaagay qaybaha ay miisaaniyaddu ka kooban tahay iyo meelaha ay diiradda saarayso waxaana uu xuseynay dalka soo food saareen xaalado dhaqaale oo ay sababeen COVID-19 ay xidalka ku absaday hakintii arrimaha xajka kuwaasi oo saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalihii dalka waxaana uu tilmaamay in ganacsatada iyo cashuur bixiyaasha dalku ay door muuqda ka qaateen bixinta cashuuraha ku waajibtay si ay u daboolaan miisaaniyadii hore ee caqabadu soo waajaheen ugu dambeyntiina miisaaniyaddan 2022 waxay miisaaniyad sanadeedkii hore ka badnaan doontaa 2.7% waxaana goluhu gudagalay dooda iyo falanqaynta miisaaniyad sanadeedka 2022 iyadoo goluhu ku ansixin doono fadhiga dambe